gedgadoonka maalmuhu sidaa galinba waa cayna goortii la joogaba ifkani waa mid gooniye ee galab noolba waaqaca jiraan soo gudbinayaa sooyaalka guunka haddaan dhab u gadaal raaco ama aan guyaal tagay xusoon maryo geeraarka kun sanaad gayiga maamusheen gebi ahaantiiyo geeska Afrikaba goor horaad gacanta saarteena boqortooyo guunaad lahayd iyo jiilaale xabashidana waad gaabiseen labada gooroode gayigaba wax tooqaama jirin gaal iyo islaamee adal gacmadeed iyo ifaad waydin garataanay guluf iyo rag baad taa u galay gooba diriireed markuu dhiigu goboleeyay bay libinta gaareen badin badan gooni u lahaatay goortu waxay samaataba xilligu iskurayaa gobolnimo marbay ka gudhaa godolna deysaaye galad iyo baraadhuhu marbay wada gadoomaane gabxo iyo marbaad joogsataa gagida cayreede ninkii taada gowracay haddaan galabta kuu sheegay gumaystuhu kolkuu yimid gayiga ama ku soo gaadhay gumaystuhu markuu yimid gayiga ama ku soo gaadhay wuxuu soo gurguurtaba markaad keentay gurigaaga qabalkuba markaasuu dhaco waydin garataane sanadaha gunnimada la haddaan mariyo geeraarka 100 guuro 50 gaar ah baad gudub u dhaafteen intaasoo guyaal hoyday baad geylan lubiseene gaashaanka goortaad dhigtaad goosan noqoteen gumaystuhu nimuu soo diraad qolaha keenteena Soomaalidu gumowday haddii guurti laga waayay culimaduna diintii gabtoo laga gudnaynaayo ged kastaba ka eegaya hadday garab la'aan joogto ama ruux garawshiyaalaha laga gol roonaaday gocor iyo nin liidkaad waqtigan daba gablaysaane intuu gobol la sheegtay hadduu reerba guri ootay gefka iyo dhibaatada haddii la isku garab siiyay gefka iyo dhibaatada haddii la isku garab siiyay ama la isku maado waqtigan dhiiga lagu goobto inaan tayda gaar ula baxaa gobada Soomaa inaan tayda goostaa xilligan soo wax garan maaha ninka taa ka gooxiye ninkii guban yeelkii